madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ka shaqeynaya sidii uu muddo kororsi u sameyn lahaa isla markaana u qaban lahaa doorasho oo isagu kusoo laabanayo mucaaradkii oo uu awood sheegtay ciidamadii ilaalada u ahaa madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland oo ku tilmaamay in ay yihiin maleeshiya beeleed isla markaana uusan u ogolaanaynin hub aad u fara badan ay kala soo degaan magaalada Muqdisho oo amni ah. Haddaba waxaan kula wadaagi doonaa xogii ugu dambeeyay qorshayaasha culus ee uu maagan yahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud. haddii ay tahay markii ugu horeysay aadna soo booqatay like muuqaalka sidoo kalena subscribe channelka si wararkeenu ay ku soo gaaraan. madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu ka biyadiiday in ciidamo hub aad u fara badan wata oo ilaalo u ah madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland ay ka soo degaan garoonka aadan cadde ee magaalada Muqdisho, waxaana uu ku tilmaamay in ay ahaayeen ciidamadaasi kuwo ciidamo beeleed ah. hub intaas la eegna in Muqdisho ay la yimaadaan ay bixinayso sawir kale oo ah in Muqdisho ay tahay mid amni darro ah oo aan la isku haleyn karin. dhanka kale waxaa la sheegay in qorshaha madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ka duwan yahay midda haatan mucaaradka uu kula dhaqmayo, iyadoona la sheegay in uu damacsan yahay qorshayaal ay qayb ka yihiin in inta ka hartay bilooyinka muddaxileedkiisan uu sii maaweeliyo mucaaradka isla markaana uu qabsado doorasho qasaba oo uu doonayo inuu mar kale dib isugu caleema saaro oo isagu kusoo baxayo. waxaana haatan madaxweynuhu uu muujiyay sida uu hogaanka ugu hayo iyo awoodda uu u leeyahay in doorasho uu hirgeliyo. mucaaradkii ayuu mar kale afka ciidda u daray kadib markii uu diiday in ciidamo ilaalo u ah Puntland iyo Jubbaland ay kasoo degaan magaalada Muqdisho. taa bedelkeedana madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa la sheegay inay u diyaarsan yihiin qorshayaal ay qayb ka tahay in uu dalka mar kale dib ugu soo laabto isagoo awoodiisa adeegsanaya. madaxweynaha ayaa waxa uu tallaabooyinka uu qaaday qayb ka ah ee muujinaysa inuu doonayo muddo kordhin in uu dib u furay iyo cutubyada lagu muransan yahay ee dastuurka dalka, kaas oo maalinta berita ah ay dib u ambaqaadi doonaan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa amray in guddoonku ay boobsiiyaan isla markaana waqti kooban ay ku qaadato inay dhammaystiraan cutubyada 5 iyo 9 ee dastuurka, taas oo uu doonayo in uu ku hirgeliyo doorasho qof iyo cod ah oo aan loo dhammayn, taas oo suurto gelinaysa in uu soo qorto dadka isaga soo dooranaya sida golaha deegaanka iyo xildhibaano kale oo gacan ku rimisa, kuwaas oo uu doonayo in uu ku hirgeliyo doorasho qof iyo cod caalamkana uu kaga gado, taa bedelkeedana uu isagu kusoo baxo doorashadaasi. haddaba madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa lagu eedeeyay in uu fashilinayo shirka ay leeyihiin golaha mustaqbalka Soomaaliyeed ee dowladda federaalka Soomaaliya, waxaana muddooyinkii ama saacadihii ugu dambeeyay dadaalo fara badan la sameeyay sidii markaasi xal looga gaari lahaa arinta ciidamada labada diyaaradood ee ay saarnaayeen hawada laga celiyay ee Puntland iyo Jubbaland. hase ahaatee madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ku adkaystay in aysan suurtagal ahayn ciidamadaasi ay kasoo degaan, walow wararka qaar oo aan helnay ay sheegayaan in ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre uu dabada ka riixayo arinta ku aadan in ilaalada ciidamada ah ee hubka culus sita ay Muqdisho yimaadaan, waxaana ay sheegeen in amniga lagala shaqeyn doono. hase ahaatee aysan aqbalaynin in tiro intaas la eg ay Muqdisho yimaadaan, iyadoona la sheegay in arinkan ay ku jirtay heshiiskii hore loo galay sida mucaaradku ay sheegeen. hase ahaatee xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in tiradu ay ka badan tahay intii lagu ballamay, taas oo keentay inuu ka biyadiido. madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaana wararka la helayo tilmaamaya in haatan uu u yaaleen qorshayaal cadcad oo uu doonayo in uu fuliyo bilaha soo socda oo ku aadan in muddo kordhin uu sameysto iyo sidoo kale inuu hirgeliyo doorasho mucaaradku iyagoo markaasi ku daba dhegan oo taagan inuu markaasi la agmaro. waxaana waxyaabaha madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu rabo inuu ku faano oo uu markaasi hirgeliyo ay qayb ay ka tahay inuu ku faanayo inuu rabo in dalkan uu kheyraadkiisa iyo shidaalkiisa soo saaro, taas oo bulshada Soomaaliyeed uu sheegay in horumar ay ku gaari karto. waxaana sidoo kale uu aaminsan yahay in waqtigan aysan ahayn waqti gorgortan laga geli karo in doorasho qof iyo cod ah laga hor yimaado, taas oo budgetka caalamka uu bandhigay isla markaana uu rabo in uu ka gado, walow ay jiraan culaysyo uu kala kulmayo mucaaradka. haddana waxaa muuqata in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uusan u joojinaynin mucaaradka oo uu kabaha la dulmarayo isla markaana uu doonayo in uu qabsado doorasho isagu kusoo baxayo, walow aan la ogeyn waxa sida ay u dhici doonaan. haddana waxaa la maleysan karin sida madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu dhaqmayo oo ah in uu doonayo inuu hirgeliyo doorasho isagu uu kusoo baxayo iyo inuusan u joojin mucaaradka. haddii dastuurkii la furay, gogoshii lagu ballamana uu jabiyey oo uu diiday, isla markaana Puntland iyo Jubbaland ay ku tilmaameen ay ahaayeen isku day lagu rabay in lagu dilo,
taasi waxay muujinaysaa in xaaladdu ay tahay mid lasii kala fogaanayo oo isku soo dhawaansho aysan jirin halka rajo oo la qabana ay ahayd in shirkaasi lagu heshiiyo shirkina haatan lagu eedeynayo in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu si kasta u fashilinayo si uu u hirgeliyo qorshihiisa uu damacsan yahay iyo doorashada uu rabo inuu qabsado.